الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض ولا ليال meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay markaasi maalinta idin wacnaato waa marka la booggeeni loogu magac daray 4000 essential English words iyo macallin Cabdullaahi Ibrahim Maxamed maanta waxaan ka bilaabi doonaa buugga akhriskiisa page-ka 74 cutubkiisa 12 waa buug 1ka waxaan akhrinayno buugga koowaad waaye ereyga ugu horeeya maanta nala sii waxa waaye alone keli ah waaye alone keli ah waaye qeexitaanku waxa leeyahay if someone hadii qof is alone keli uu yahay they are not with another person qof kale lama joogo tusaale the boy wiilka wanted to be alone wuxuu rabay keligiis inuu noqdo to think suu u fikiraa ereyga xiga apartment waa dhismo apartment waa dhismo an apartment dhismuhu is a set of rooms waxa waaye waa urur qolal ah in a building dhismooyin where people live meeshaasoo dad ay ku nool yihiin tusaale she has a nice apartment in the city iyadu waxa ay lahayd dhismo markaasi fiican ay waxay ku lahayd magaalada article waa waaye maqaal waa article waa maqaal an article maqaalka is a history waa sheeko in a newspaper ku xardhan markaasi journalka or ama magazine Mr. Journalku waa isku mid journal iyo newspaper iyo magazine waa isku mid laakiin se way kala tahay inta badan waxa la isku qaldaa journal magazine and newspaper saddexdaas waa la isku qaldaa laakiin se newspaper kan waa maalinlaha kan soo baxo sida ila tahay fikirkeyga magazine waa kan markaas isbuuclaha ah waay journal waa mid bilo ah inta badan bilo soo baxo waxyaabaha ugu cajiibsanaa ee adduunka ka dhacay ayaa lagu soo qoraa bishaasi inta lagu guda jiray mise sheekooyin jecel ha noqoto sheekooyin markaasi ha noqdaan qisooyin dhacay ha noqdaano wax allaale wixii ku saabsanaa ee bishaasi dhacay ama laba bilood kadib dhacay ay inta badan lagu soo xardhaa journalka ereyga xiga waxa uu yahay artist waxa waaye markaasi farsamayaqaan waay farsamayaqaankaasoo ku xeel dheer sawirada waa an artist sawiraagu is a person waa qof who paints markaasi rinjiya ama draws sawira or making sameeya sculptures markaas wuxuu sameeyaa farshaxanka ayuu sameeyaa tusaale he went wuxuu aaday to Paris ayuu aaday to become so u noqdo an artist ereyga xiga wuxuu yahay attitude-ka waxa waaye qofka dhanka fiican ama dhanka wanaaga wax ka eego hadba siduu shayga u dareemo mise u fikira ayaa attitude la yiraahdaa someone's attitude qofka fikirkiisa is a way waa hab they feel uu u dareemo and think mise u fikiraa waay qofka siduu u fikira ama markaasi oo wax u dareema ayaa attitude loogu magac daraa John ninka la leeyahay has a bad attitude wuxuu leeyahay dareen ama fikir xun he has always anger mar walba uu xanaaqsan yahay uu careysan yahay compare was barbardhig to compare means in asbarta waxa la jeedo say in dhado how see markaas two things laba waxyrood are the same in isku mid yihiin different misne kala gedsan yihiin if you compare hadaad isbarbardhigtaa cats bisadahu and dogs eeyaha you will see waxaad arki doontaa that in markaasi they are both good pets inay labadooduba xayawaan wanaagsan judge waa garsoor to judge inaad garsoortaa something shay is to say waa inaad dhahdaa if it is good or bad inuu shaygaas wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay markaasi the boy wiilka was going wuxuu rabay to judge inuu garsooda how his mother's turkey tasted cuniga waxa uu doonayay inuu markaasi garsoora sida markaasi hooyadiisu dhadhanka ay u sameysay bolonbooladan la solayo duban sidii dhadhankeeda u sameysay ayuu rabay inuu markaasi u garsoora Turkey haddaan aragno marna waxa waa wadan magaciis haddii laakiin Turkey teste ay raacdo waa bolonboolo inta badana la dubay oo markaasi raashin ahaan loo cuno duban waaye haddii aan kasii gudubno ereyga magazine journal
magazine journalka is a regular publication waxa waay markaasi waa daabaci joogto ah news lagu daabaco akhbaaraad historia sheekooyin and articles iyo markaasi maqaalo lagu daabaco he likes wuxuu jecel yahay to read inuu akhriyo fashion magazines journalada fashionka lagu soo qoro inuu akhriyo ayuu jecel yahay material waa walxo a material walaxdu is a what waa waxa is used loo isticmaalo to make in lagu sameeyo something shay waxaa leeyahay markaa tusaalaha a brick buluketigu is a good material waa shay wanaagsan misna u wanaagsan for building houses dhismaha guryaha u wanaagsan a meal waxa waaye waa markaasi waa raashin waxaa leeyahay a meal raashinka is a time waa waqti when food markii cunadu is eaten la cunaayo like sida breakfast quraacda lunch qadada or dinner mise cashada tusaale a breakfast quraacdu is a my 5 for meal waa raashinka aan ugu jeclahay because maxaa yeelay I enjoy waan ku raaxaysaa breakfast foods cunooyinka quraacda waxaan u gudbaynaa page-ka 75 ereyga ugu horeeya waa method waa hab a method habka is a way waa hab to do aad u samaysaa things waxyaabo tusaalaha one method hal shay to remember ay tahay inaad xasuustaa to remember thing ay tahay inaad xasuustaa is to tie waa inaad markaasi xirataa string waa inaad xirataa koor adigoo ku xiray xirig around your fingers farahaaga adigoo ku xirinayo neighbor waxa waaye markaas waa deris a neighbor deriska is a person waa qof kaasoo life is ku nool near you agtaada ku nool tusaale I like waan jeclaa my neighbor deriskayga waan jeclaa because maxaa yeelay he is a very friendly aad ayuu saaxiibtinimada markaasi saaxiib u yahay professional waa heer if something haddii shay is professional uu yahay heer caalami it deals with wuxuu la xiriiraa work shaqadaasoo uses loo isticmaalo special skills xirfado gooni ah tusaale if you want haddaad rabta to be a pilot haddaad rabta inaad noqotaa dooliye you must have waa inaad leedahay markaasi professional training tababar heer caalami waa inaad leedahay profit waa faa'iido ereyga noogu xiga waa profit faa'iidadu is a extra money waa lacag dheeri you make aad samaysaa when you sell something markaad shay aad gadaa I made a small profit aniga waxaan sameeyey faa'iidooyin yar ayaan sameeyey from selling inaan iibiyo my all the clothes dharkaygii duuga ahaa inaan iibiyo faa'iidooyin dhowr ayaan ka sameeyey quality waa tayo the quality of something shay is how good it is waa siduu shaygan u wanaagsan yahay the quality of his car tayada gaarigiisa is a very good aad ayay u wanaagsan tahay shape muuqaal waxaa leeyahay marka ereyga xigaa waa shape muuqaalku is a simple form waa hab markaasi fudud like square ah laba geesood ah or ama circle mise goobo ah the triangle saddex geesoodka is my favorite shape waa muuqaalka aan ugu jeclahay space waa maran space maran is an empty area waa goob faaruq ah tusaale I don't have ma haysto much space goob badan oo faaruq ma haysto for things waxyaabaha uma haysto in my small house gurigayga yari waxyaabaha qaar uma haysto ayuu yiri stair waa jaranjaro stairs jaranjaradu are the things waa waxyaabaha that are used loo isticmaalo to go up in lagu aado kor in a building dhismo kore in lagu aadaa ayaa loo isticmaalaa jaranjarada tusaale you can take the stairs waxaad markaasi qaadi kartaa oo aad raaci kartaaba the stairs jaranjarada to the second floor sagxadda xigta saad u aadamise dabaqa xiga saad u tagtaa waxaa leeyahay waxaad raaci kartaa jaranjarada symbol waa calaamad a symbol calaamadu is a thing waa shay that taasoo stands u taagan for something else wax ayay u taagan tahay tusaale waxaa leeyahay the symbol calaamadani tell us waxay noo sheegaysaa that in markaasi we cannot smoke inaanan sigaar ku cabin in this area goobtaani thin waa caato ah mise xuut ah if something haddii shay or if someone haddii qofi
or something mise shay is thin uu yahay xuut ama caato u yahay they are not fat ma buurna tusaale dhammaan ninka was thin wuxuu ahaa mid caato ah because maxaa yeelay he didn't eat much in badan waxba ma cunaba waxaan u gudbaynaa markaasi beejka 76aad waxaa noogu xardhan oo beejka noogu qoran ba su'aalaha ardayga ayaa la rabaa inuu soo xaliyo beejka sidoo kale waxaan u sii gudbaynaa 77 si la mid ah waxaa noogu xardhan su'aalo waan ka sii gudbaynaa ardayga waajibkiisa uu saaran yahay su'aalahaasi beejka 78aad waxaa noogu xardhan markaasi casharkaas oo sheeko ah sheekadaas waxaa lagu soo lifaaqay 20 eray ah hadda aan soo baranay waxaa la rabaa marka inaan ka fahmi karno waxaa loogu magac daray sheekadan the Grease artistihii cajiibka lahaa mise walla haye waxaa leeyahay markaasi waxay ka bilaabatay sheekadan Fraunhofer ninka leeyahay was wuxuu ahaa the best artist naqshadeeyaha ugu wanaagsan in the world adduunka sawiraaga ugu wanaagsan ayuu ahaa Fraunhofer waa nin United States inuu ka soo jeeda aan jeclahay noolaan jiray qiyaastii 1831 xilligaasi noolaa ayay ila tahay si la mid ah waxaa leeyahay markaa ninkan wuxuu ahaa the best artistaha ugu wanaagsan in the world caalamka everyone qof walibana loved him waa uu jeclaa the quality tayada of his painting oo markaasi wax uu markaas rinjiyeeyo was waxay very high mid aad u sareysa ayade he always mar waliba used wuxuu isticmaali jiray the best materials waxyaabaha ugu wanaagsan ee markaasi ka caawinaya sawirkiisa ayuu isticmaali jiray he wuxuu sameeyay a big profit wuxuu sameeyay faa'iidooyin waaweyn from his painting wuxuu faa'iidooyin waaweyn oo ka sameeyay rinjiyeentiishan ayuu markaas wuxuu ka sameeyay faa'iidooyin waaweyn he had a delicious meal sidoo kale wuxuu lahaa oo qaadan jiray cunooyin heer sare ah with his rich neighbors isoo la qaadan jiray markaasi dariskiisa qaniga ahaa ee lacagta lahaa he taught wuxuu baray art sawirka ayuu baray classes heerarkiisa ayuu kala baray life noloshu was good waa ay wanaagsan tahay ayaa leeyahay dadtaas kadib his attitude fikirkiisa janjad waa uu bedelay sidoo wax u dareemo u fikiraay waa uu bedelayo he stopped wuxuu jeejiyay selling inuu iibiyo betting waxyaabaha uu rinjiyay inuu iibiyo ayuu markaasi joojiyay antigen misna baridii dadku u barayna waa uu joojiyay he tried wuxuu isku dayay a new method hab cusub ayuu isku dayay of painting oo wax markaas u rinjiyayna u naqshadayna he stayed alone wuxuu kaligiis joogi jiray in his apartment dhismihiisa kaligiis ayaa joogi jiray all day maanto idil kaligiis ayaa dhismihiisa dhex joogay he worked wuxuuna shaqaynayay all day maanto idil and all night iyo habeenkii idil rarely eating in yar ayuu wax cunayay soon durbadiiba Fraunhofer ninka la yiraahdo became wuxuu noqday very thin ayuu noqday xuutan ayuu noqday but laakiin he kept working on the same painting for many years sidaas ayuu ku shaqeynayay sanado badani sidaas ayuu ku shaqeynayay he worked wuxuu u shaqeynayay as hard as he could in Allah intuu awoodo shaqeyn kara uu shaqeynayay ninkaasi finally gabagabadii he finished wuxuu dhameeyay the painting rinjiyeenta ayuu markaasi gabagabeeyay he was very happy aad ayuu markaasi u farxay and invited wuxuuna casuumay other artistiyaal kale ayuu casuumayo to see it wuxuu sameeyay sidoo u tuso I want waxaan rabaa ayuu leeyahay your professional opinion fikradihiina caalamiga ah ayaan rabaa hiiseed ayuu ku yiri he wanted wuxuu rabay dam iyagu ka rabay to judge inay markaas u garsooraan it isiga and compare misna la berber dhigaan to the other painting waxyaabaha kale oo markaas la rinjiyeeyo
waxaa leeyahay markaasi everyone qof waliba was very excited aad qof waliba maxaa la yidhi markaasi very excited aad ayuu ugu farxay as they went up intay sii socdeen markaasi jaranjarada ay sii korayeen to the stairs jaranjarada of his apartment naqshadiisa jaranjarada intay sii koraayeen waxyaabaha oo darbiga ku sii sawiray dadka aad ayay ula dhacsanaayeen Fraunhofer Nicolas was excited wuxuu ku faraxsanaa to show inuu tuso his painting creativity and artists markaasi artistayaashana were excited iyaguna ku farxeen to see it inay arkaan they will love it way jeclaan doonaan he thought ayuu ku fikiray but laakiin they did not maysan jeclaanin they were surprised waxay la yaabeen by his painting creativity oo waxaan u sawiray ay la yaabeenoo there was no white anywhere wax cadaan color cadaan ah moosan jirin Fraunhofer filled wuxuu ka buuxay the whole painting dhammaan rinjigiis wuxuu ka buuxay with lines xariiqmo and the colors iyo midabo there was no space man jirin meel banaan for normal pictures sawir meel banaan moosan jirin it was full of strange shapes sidoo kale wuxuu ka buuxiyay meel waliba muuqaalo cajiib leh it looked waxay u ekaatay markaasi intaas uu sameeyay bad mid xun to the other artists dhammaan artistayaasha kale waxay ula muuqatayba sida waxaan uu sameeyay ninka artistaha ah inay wax xun ay yihiin oo yacni uu ku ciyaaray wixii uu sameynayay he used symbols sidoo kale wuxuu isticmaalay calaamado and they did not understand them wayna fahmi waayeen calaamadahaasi they thought it waxay u fikireen was terrible inuu yahay caqabad mishashido dhib why did you paint these strange pictures maxaad u sawirtay ee liiri sawirahan cajiibka leh niyo maxaad u sawirtay someone asked qof ayaa warsado artistayaashii ka mid ahaa they did not understand its beauty ma fahmayaan they dadku did not understand ma fahmayaan its beauty quruxdiisa ma la fahmayay but laakiin after some time waqti kadib many people dad badan began ayaa bilaaway to like inay ka helaan his painting wuxuu rinjiyey oo naqshadeeyay dad badan ayaaba ka helay people dadka wrote waxay u soo qorayeen articles ay u soo qorayeen markaasi maqaalo ay soo qorayeen about it ee ku saabsan rinjiyinta uu sameeyay ay ku soo qorayeen in magazines journalada lagu soo qorayay ninkan waxyaabaha uu sameeyay they said waxay lahaayeenba it was waxay noqotayba was his best work shaqadii ugu wanaagsanaa uu qabto ayaba noqotayba they loved his strange waxay jeclaadeen symbols calaamadihiisa la yaabka leh ayaba ka heleenba they loved sidoo kale waxay jeclaadeen his strange colors midabadani cajiib kale ayay jeclaadeen sidoo kale Fraunhofer's painting rinjiyinta mise naqshadaynta ninka la leeyahay Fraunhofer reminded wuxuu xasuusiyay everyone qof waliba that in markaasi just because something was new didn't mean that it was bad waxaa leeyahay markaasi qof walba wuxuu xasuusinayaa in wax waliba ee cusubi uusan la macno ahayn inuu xun yahay ayaa la xasuusanaa ayuu yiri he also helped them sidoo kale wuxuu ka caawiyay dadku to realize inay ogaadaan that in markaasi sometimes mararka qaar it takes people inay dadku markaas u qaataan a little time waqti yar ay ku qaato to understand inay fahmaan great things waxyaabaha markaasi fikirada markaasi waaweyn inay waqti yar ku qaato ayuu markaasi ka caawiyay page-kaasi 78aad waan ka gudbaynaa page-ka 79aad sidoo kale waxaa noogu xardhan reading comprehension waa su'aalo oo la ka yimid isaguna cashirkii hadda aan soo akhrinay ardayga ayaa la rabaa inuu soo xaliyo halkaas waxaa noogu eg cashirkeenii maanta ilaahay haddoo idmaa الله سبحانه وتعالى عشر كحيجين هنو جارسي بربش برواقي ودن كينو نبض والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.